xaflad si heersaraa loo soo agaasimay taageerayaal cusub oo xisbigaasi ku soo biiray waxaa qarsoontay xarunta xisbigaasi gudaheeda iyo barxadeeda intaba taasi oo ay markaasi halkaasi khudbado iyo hadallo qiiro leh ka soo jeediyeen mas'uuliyiinta xisbigaasi iyo taageerayaasha cusub ee xisbigaasi ku soo biiray taageerayaasha xisbigaasi ku soo biiray oo aqoon-yahano cuqaal iyo dhalinyaro isugu jiray rag iyo dumarba leh ayaa waxaa ku hadlay afkooda jenaraal maxamed maydhane oo isagu markaasi ka mid ah taageerayaashaasi cusub ee xisbigu markaasi ku soo biiray waxaa sidoo kale halkaasi iyaguna ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye oo aad u soo dhaweeyay waxaana ka mid ah mas'uuliyiintii halkaasi ka hadashay axmed xuseen oomane oo saraakiisha sarsare ee xisbigaasi ka mid ah inay maanta xisbiga kulmiye guushii gobolka awdal gacanta u soo gashay baad u sheegaysaa inuu kalsoonida qaadan u sheegay waxaan leeyahay weli ma dhammaan ciyaartu 26 juun sidaynu isaga horeynay ingiriiskii waxaan rabnaa inaynu isaga horeyno udub iyo cadaasiinteeda ugu dambeyntii waxaa halkaas isagu khudbad dheer ku soo koobay iyo soo dhaweyntoodaba kaysaydici oo aad ugu mahadnaq kulmiyaha in haddaba maanta ku cadeeyeen maanta dhammaantood 180 meesha waxa farcodkeeda siinaysa kulmiye qaar mahad gaar ah ugu celiyaa waxaynu wada garanaynaa maanta dalka dhexaada uu marayo waan iska wada garanaynaa inuu dalku isbedel u baahan yahayna waxay sababtaa ninkan waa waagi berigiisa u gartaa ilmaha carruurta maanta garanaya in maanta dalku isbedel u baahan yahay isbedelkaasi muxuu yahay asaba isbedelkaasi ma aha mid laba shakhsi lagu bedelayo waa isbedel waxa rabaa isbedel dhab ah oo gunta laga soo dhiso oo maanta Soomaaliland u baahan tahay oo dhaawac weyn runtii la gaarsiiyay dowladnimadii Soomaaliland xasan